السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليها جلاي أصحابتي فملكيga meel walba aad dunida ka joogto waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada oo walaalkii aan digtaa shaqada raxmaan oo idin leh qaybteeni lixaad insha allah faa'iidada ay leedahay saliidan new hair lotion iyo dambarolka soomaalida labada dhinacba laba nooc oo kala nooc ay u isticmaalaan qof si u isticmaalaa dambarolka waxa waaye dadaa ku dhahay maalin walba waxa waaye madaxa kaa dhaawacaya madaxuu dhib u keenaya saanay naqanay marka laakiin qofka biniaadamka isagaa dhaawac isku geysan karo isagaana is habeyn karo horta waxaan wax dhaawac qofku geysanaya maa dhowr marna waan ka hadlay ani keligii maa dad badan way ka hadleen hadda labada dambarool aan kala haay way kala duwan yihiin waxaa idinka cudurdaaraana maanta xoogaa allergy u kacsan oo marka madaxana way xanuunahay ma u malayn kari inaan live soo galayo laakiin insha allah haddana video duubi karo haddana insha allah waa ku dadaalay inaan duuba isku daya insha allah haddii ilaa yiraahdo so marka labadan dambaroo la arkaysiin hadda waa isku size waa 0.5 iyo 0.5 laakiin farqi weyn oo kala dhexeeya labadooda shaqo ma isku laha kan waa qaab oo easy ah oo asaga dhan khafiif ah kanna xoogaa yar wuu yara culus yahay intana wuu ka culus yahay intana kan labada dhinacba khafiif waaye hoosna khafiif waaye korna khafiif waaye markaan saara kan aan ku riixo madaxayga saas ugu dhajiyo dhibcihii mudacyada uu leeyahay waa yaryariis inay naqanayaan camalayna dareemaa oo haddaan zaa'id ugu dhajiya hataa xanuun yar waa dareemaa laakiin sidoo kan ii xanuunjinaya mii xanuunjinaya mafahanta laakiin kan haddaan saaro oo ku dhajiyo mudacyadiisa ma naqanayaan madaxay toos u duraayaan mafahanta farqiga u dhexeeya taas marka way kala duwan yihiin marka kan in lagu dhajiyo ma loogu talagelin oo dhab madaxa lagu siiyo haddaa madaxa ku dhajisid oo zaa'id ugu dhajisid waa is dhaawacaysaa wuu ku dhaawacaa soo marka si uusan kuu dhaawacin dhakhtarka soo sameeya ama qofka soo sameeya ma ugu talagelin madaxa in lagu dhajiyo dhab lagu dhawo saas lagu riix wuxuu ugu talagalay saas inaad tiraahdo leanno macnaha oo loo sameeyo dhanba waxay tahay madaxa xoogkan saaran oo meesha tinta ee ka baxday madaxa oo ka daboolmay xoogkaas inuu maalinba kis fiiqo maalinba kis oo jag siiyo maalinba kis jib oo siiyo si oo maqaarkii originaalka ahaay oo caadiga ahaay oo ilaah lahay laanna qofka biniaadamka jirkaas markaa inta saan u fiiriso hadda oo roob kugu da ama qabo uu yimaado xaadaada way istaagaya xaarka markay korka soo yeelanaha dhibcahaas macnaheeda waxay tahay inuu ilal inay tahay ilashii soo marka ilihiyaa xirmeen meesha asaga ilahaas inay soo furmaan dib usoo noqdaan oo kaa caawina oo kaliya wax kale ma sameynayo halkaas zaa'id ah marka soo kaaga fiiqi karaa wuxuu kaaga fiiqayaa inaad si loogu talagalay oo nidaam leh oo tartiib leh oo adigana aadan dhib isku geysanaynin madaxaaga u isticmaashi tartiib waa kahay mana isdhaawacay dhibna ma isku geysanaya aniga madaxaygina tartiibka waa marinuu hel ma fahanta nahayaalaysa laakiin haddaa inaad saan u qabto saas ugu dhajiya saas soo dhaho bismi illaahi raxmaan raxiim cirbadahaas arkaysid oo dhan madaxaygii wada galaya dhub markuu dhub dhaho marka maqaarka uu dhub oo zaa'id u siiyan ku wada celiya meesha xubkan kore wuu ka gudbaa maqaarkan kore wuu ka gudbaa markaas gudahu galaa ma fahanta gudahaas u galayan marka anina xanuun zaa'id u igeysanaa lagana yaabo markaas inuu dhaawac samayn karo ma fahanta laakiin hadda dhaawac ma sameynayo markaa saan ugu shanlaynayso waa shanlo madaxaaga shanlo marka qofka agoolka markuu ku dhaco oo madaxiisa cadaad yeesho muxuu sameeyaa shanlo ku hoolaa soo shanladaas dhibaato ma u geysanaya may laakiin qoloftaas madaxa saarneed oo agoolka ahayd ay karidaysaa kanna waa sidoo kale marka meeshaas wasaqdaas oo ka qaadaya xoogka ku fiiqa xoogka marka waa ku fiiqa kadibna insha allah tinta tartiib u soo laabanay fahanta ani hadda inta iyo inta isku mid maaha inta xaaday soo yeelatay intana tinteeda caadigaa soo noqonayso maasha allah maadaama marka hore tin lahayd soo marka inay waqti uu kala qaato waa laga yaabaa laakiin indhow waa soo madoobaatay way soo laabatay wixii dhiman waxay tahay sidii ay intasay soo noqon lahayd ay intana soo noqoto haddii ilaa yiraahdo marka walaalahay aan jeclahay kulley wixii aniga khibradeyda ah oo intaan isticmaalaya aan ka faa'iiday ama aan ka arkay mar walba waa idiinla wadaagayaa idinkan insha allah kulley qof walba uu soo weydiiyo
waxay aniga aan ku dhaamo khibradeyda waa idinka soo jaal bixinaa insha allah haddii ilaa yiraahdo. marka waa kaaya walaalkii cabdifataax oo idiin leh haddee meesha kala kiciya oo soo booqataan maasha allah. waa arkay janaalkayga maasha allah, ilaahay idiin xafido. soo marka waa kaaya waxaa ku dadaashaan insha allah biidinillah qof walbo wixii oo rabo oo asaga ka dhex guuxaya inuusan la cabsanin. wax adig kugu jira banaanka soo dhig. qofka walaalka waxaa laga yaabaa wax badan oo adig kaa dhex guuxaayo oo aa la cabsanaysa markaa banaanka soo dhigtid dad badan oo ummadaada oo walaalaha inaa ku caawist. marka weligaa allaha fikradaada wixii aad dadka ku dhaanto dadka la sheergaray la wadaag. laanno qofka inaad wax siisid waxaa uga qiimo badan wax wanaagsan inaad u sheegtid oo wixii wanaagsan markaas uu isticmaalo. mafahanta dad badan oo hadda bidaar anaa hadda tinaanba lahayn waxoogaa khafiif lahayn naqatee dad alaabta sidaan oo wada xiiran tahay oo wixii rabo inay isticmaalaan rabo maalin kasta kula soo hadlaa kusoo weydinaya haddana cabsanaayo. soomaaliya horu dhahday gacan gadaal ka cabsanayso geed ma goyso. soo marka inta aa cabsanaysid adiga horumar ma gaaraysid. inta aa cabsanaysid adiga wax badanaa kaa dhumaayo. inta aa cabsanaysid adiga dad badanaa ku dhaafayo. soo marka inta lagu dhaafo oo beri ka shalayn lahayd shalayda xaaraam waa. hadda jaanis aa haysata qof weyn aa tahay 20 sanaa jirta 30 jirta laanno tintaan buubayso oo dhammaanayso cimilaha qurbaha inta badan keenay. fikirkaa keenaayo, jawiga duwanaa keenaayo, shaawarkaan badanaa keenaayo. laanna waxaa laga yaabaa si degdega inuu qofka oo isagoon da ahayn wax badan isaga bedesho. marka isku day stresska badan wuu keenaa. waxaasoo dhan say kaaga bixi karaan waxaaga inaa adiga qof obet noqoto oo furan. qof furan noqo wixii markaas kugu jirana dadka la wadaag adigoo aan markaas wax dhiba qofka aadan u geysanin ama qof aflagaadaynin ama wax ku samaynayn. midna ogow weliga alaa mar walbaa wax keentid ama wax inaad samaysid rabtid ama aad dadkaaga Soomaaliyeed inaad wax la wadaagtid rabtid inta adiga oo positive-ka ah oo wax positive-ka kusoo qortay inta negative-ka kusoo qorayso inta negative-ka kusoo qoraysaa badanayso. soo marka ha fiirinin mar walbo oo adiga aa hor inaad u socotid rabtid qofkaas negative-ka kusoo qoraya wuxuu ku tusayaa waxaa samaynaysid inay wax wanaagsan yihiin. soo marka qof walba oo negative kusoo qoro iyo kan positive-ka kusoo qoro labadooda midba sida adiga u qancin kartid u qanci, laakiin labadooda midna ha ku xadgudbin. marmarka qaar personal attack lagu sameynaa wixii rabaa lagu dhahaa, laakiin markii saas lagu dhaho qofka ra'yigiisa qiimeey laakiin wuxuu yahay u sheeg adigoon aflagaadaynin. soo marka isku day mar walba wax lagu sheego hadduu negative yahay inay dhiirigelin kuu tahay, hadday positive tahayna inay dhiirigelin kuu tahay. marka isku day weliga allaha inaadan naqanin qof wixii loo soo qora ka hor dhaco ama xumaan ku jawaaba ama wax sameey. qofka adigoo u jawaabayo sometime haddana waxa aad uga jawaabaysid dareensii. haddii wax markaas qaldan oo ku hadleen inay wax qaldan ku jiraan, hadduu wax fiican ku hadlayna ku ammaan qofka horena uga sii soco. intaas waa iga waano waan isku leenahay. marka walaalahay waa idin jeclahay. one love. hadda dambarolkayga saano igu dhamaaday insha allah biidnillah. saliideeda hadda bilaabaya waa idinka hilmaamay maanta inaan idin sheego today is 21. marka ani kolley new relation ma dhaho. new relation marka hore gadanaya ay markaan bilaabay waa dhahay, laakiin hadda ani ahaanteyda waxa waaye turki corona u bixiyay. turki corona qofka meelaha la joogo rabo oo adiga qurbaha Sweden special qofkii la joogo diyaar oo helaya meel walba oo ka joogo insha allah waa loo weynayaa. qofkii waxyaabo kale isoo weydiinaya dambaroolka qaabka loo isticmaalayo, dambaroolka wuxuu yahay, faa'iidadu leeyahay, qaabka oo qofka ku heli karo, waxaasoo dhan insha allah commentiga igu dhaaf insha allah. ama whatsappkayga meesha kusoo qoraa mar walba whatsappkayga kala soo xiriir haddii la yiraahdo. waa idin jeclahay sidaa wada dhantihiin. inta inaab waa jeclahay, intii jecel waa jeclahay, inta aan jeclayn anaa jecel. waa idin salaamaya sidaa wada dhantihiin. Soomaali Maxamed meel walba dunida ka joogtaan. one love. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.